haddaanu soo noqdo maanta caqaladaha jira oo aan mid iyo laba ka tilmaamo waxa jira caqaladaha waaweyn ta koobaad waa amniga qaranka Soomaaliland maanta dagaalo badan baa ku socda oo siyaasad leh oo colaad leh oo dhaafsiisan dalalka aynu jaarka nahay inta aynu jaarka nahay oo gaarsiisan in Soomaaliland ay ka mid tahay meesha caalamka oo dhan ku kala qaybsan yahay in taageersan iyo in aad uga colowday maxay Soomaaliland heerkan u gaaraysaa ama ay qarannimadan ugu dagaalamaysaa oo ka filayay Soomaaliland inay ka adkaysi jilicsan tahay ama ay ka nugushahay in intaasoo halgana ay dhabarka dhigto oo ay xajiso waxaan is aqoon qiimaha iyada jacaylka qofka Soomaaliland iyo qabkiisa inaan la taaban karin adduunka intuu ku nool yahayna ilaahay mooyee bini aadmi kale aanu taladiisa qaban karin intay nool yihiin iyagiiyo wadkooda maalmaha waxaa xoog socda shirar dowladda Turkiga hogaaminayso oo ay xulfo ku yihiin Masar iyo Turkiga iyo dowladda xabra taagta daran waxa la yaab leh in maanta jibcida qurbanka xasan saaka ilaa wiya saddex shaba ay taageereysay in ciidamadii la oran jiray UNISOM imkana aad sila yiraahdo ee caalamku ugu deeqay muddo ka badan 20 sano oo waqtigoodii dhamaaday oo ay ka daareen kuwii lacagta siin jiray oo ugu horeyso midowga Yurub oo ay ku xigta dawladaha galbeedka sida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay ka daareen bilyanska ay ku shubeen oo waxba ka soo bixi waayeen in ciidamadu waqtigood soo dhawaaday la leeyahay hasii joogeen inta cid shil loo helayo laba dawlad baa ballan qaaday inay ciidankeedanayaan ay ku garab taagan yihiin Soomaaliya oo ay iyagu iskood u keenay doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dawladda xabar labada dawlad waa Turkiga iyo Djibouti waa xaalad cusub Turkigu muxuu ugu dagaalamayaa inuu xamar garab taagnaado iyo dawladdiisa kolba intii xamar soo hadha waa daraha dalkiisu ka dhaxarkaya dawlad walbaana waxay ku daashaa daraha dalkeeda muxuu Soomaaliland ula dagaalamayaa oo garab siinaya dawladda xamar waxa weeye Soomaaliland intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay wax mar walba wuxuu ka waayay inay ka soo liicdo ama ay u dhagan wulaato in qaranimada Soomaaliland waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xamar hadduu aqligiisa lagu waayo Turkiga waxaan ka uga sheegayaa hadii sasabo iyo xudasho iyo waaro muddo dhowr iyo 10 sanaad waday oo Soomaaliland ka diiday waxaan qarannimo ahayn inkastoo maanta dawladda labada ugu ciidan badan tahay NATO inkastoo dhowr iyo 10 sano dambeeyay aad gaadhay horumar ciidan iyo qalab iyo technology intaba waxa ka xoog weyn rabitaanka Soomaaliland qarannimada ka ilaalinaya Soomaaliland way ka adkaysi badan oran kara waxay weyday cid markeeda banaanka u saartay 88 ilaa intii ka dambeysay taqgaza maanta ka dhacaysa hubaal waxa dawladda u soo saaray weyday waxa ka adkaysi badnayd Soomaaliland wixii soo maray waqtigii 88 markii ay dalkeeda ka xoreysay dawladdii daalimkii loo jiray siyaad bar marka dawladda Turkiga iyo Masar maalin hore oo waraysi laga qaadayo baan iyada iri waan ku celinaya Masar la dagaalanka Soomaaliland inay qaran noqoto ee xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ciidanka u soo dirayso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo u furto deeqda caalamku sidii walaalada Falastiin waxa artay ku dhacayna afarta kale ugu dilay sidii xoolo weer dhex galay oo xeran ugu yeetaynayo inay taa wax ka taraan baa ta Soomaaliland soo gaaray waxa kaloo cadeynaya dawladda Masar oo dawlad weyn ah oo soo jireena iyadoo Turkiga isku dhaqan yihiin meelo badan waa wada islaam
وبقرطوي سوق قوبي ودولة قاب كود اسمه وحبضوا بهاي وحجابه حضر مصر أنت الله هو مال عيد ردرتي وتلوه قرقارية ملاحظ odayaasha cirada la garanayay waxa ugu horeeyay ugu dambeeyay dalka la yiraahdo Yaman markii uu ka dhacay inqilaabkii ugu horeeyay 60 oo boqorkii markaa meesha ku raagay la ridaayay waxa loo soo diray ciidan masaariya dhowr iyo 10 sano joogay mashkaladii uu ku abuuray ilaa 60 ilaa maanta waa ta ka taagay Yaman waxaan leenahay Allahumma rajayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoro waa la arki doonaa maanta